akhriska iyo dhageysigu kaliya ma kordhiyaan fahamkaaga luqadeed ee waxay ka dhigaan qof luqadda u adeegsan kara si xirfadeysan. maanta waan isla tijaabino oo aan isla qaadano daqiiqado kooban oo akhris iyo dhageysi ah. inta aanan sessionkeena u gelin ka hor, wax ka baro online college wuxuu leeyahay master class ama fasalo online ah oo lagu dhigo special English program. linkiga qaybta description-ka ayaad ka heli kartaa isagoo dhameystiran. aan dib kuugu soo celiyay sessionkeeni, hana ilaawin inaad muuqaalka like saarto si uu arday badan u gaaro. mahadsanid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the lesson. My name is Mahmoud Ahmed Haji. And in this lesson, we're going to have a reading session. In English, it's very important that we do a lot of reading, and also we're going to have listening at the end of the lesson. Alright, so let's start. My sister, my brother, and I are busy this afternoon. We are staying after school and we are practicing different things. And walaashay iyo walaalkay iyo aniga galabta mashquul ayaan nahay. Guriga iskuulka markuu dhamaado kadib iskuulka ayaan joogaynaa si aan u practice gareyno ama u tijaabino u practice gareyno waxyaabo kala duwan inaan practice gareyno ayaan iskuulka ugu harnay maanta. Alright, wiilka ayaa ku bilaabeynaa marka. Alright, I'm practicing soccer. Kubadda cagta ayaan practice ku sameynayaa. I practice soccer every day after school. maalin walba markuu iskuulka ii dhamaado soccerka ayaan practice ku sameeyaa ama kubadda cagta ayaan practice ku sameeyaa. My soccer coach tababarahayga tells me that I am an excellent soccer player. My soccer coach tells me I am an excellent soccer player. Coach waa tababare. My soccer coach tababarahayga tells me wuxuu ii sheegaa I am an excellent soccer player. waxaan ahay inaan ahay excellent soccer player, inaan ahay qof kubadda cagta aad ugu fiican. My friends tell me I play soccer better than anyone else in the school. Saaxiibadayna waxay ii sheegaan ama waxay dhahaan adiga ayaa kubadda cagta ugu fiican ardayda iskuulka joogto dhan. adiga ayaa kubadda cagta ugu fiican ayay i dhahaan ama aniga ayaa ugu fiican. Alright, I want to be a professional soccer player. waxaan rabaa inaan noqdo qof kubadda cagta professional ku ah ama shaqadiisu ay tahay kubadda cagta. When I grow up, markaan weynaado. That's why I practice every day. Taas ayaana sabab u ah sababta aan mar walba u sameynayo practice-ka. Alright, gabadhan maxay tiri marka? My sister Anita is practicing tennis. walaashay Anita ayadana waxay practice ku sameynaysaa tenniska ay practice ku sameysaa. She practices tennis every day. maalin walba ayay tenniska practice ku sameysaa after schoolka kadib. Her tennis coach tenniska macalinkeeda coachkeeda ama tababaraheeda ama macalinkeeda tenniska tells her she's an excellent tennis player. wuxuu u sheegaa inay tahay an excellent tennis player, inay tenniska aad ugu fiican tahay. And her friend tells her she plays tennis better than anyone else in the school. asxaabteedana waxay u sheegaan inay tahay gabadha ugu fiican tenniska. Anita wants to be a professional tennis player. waxay rabtaa inay noqoto professional tennis player inay noqoto ayay rabtaa when she grows up, markay weynaato. That's why she practices tennis every day. taas ayaana sabab u ah sababta ay practice maalin walba u sameynayso. Alright, maxaa noogu xig marka? My brother Hector is practicing violin waxa weeyaan gitaarka weeyaan. Violinka ayuu maalin walba practice sameeyaa. He practices violin every day. maalin walba ayuu practice ku sameeyaa after schoolka kadib. His music teacher tells him that he's an excellent violinist, and his friends tell him he plays violin better than anyone else in school. walaalihiisna waxay u sheegaan in uu yahay qofka ugu fiican dhinaca violinka. Hector wants to be a professional violinist when he grows up, markii uu duqoobo. That's why he practices every day. taas ayaana sabab u ah maalin walba wuxuu practice u sameynayo. Alright, my sister Jenny and Vanessa are practicing ballets. ballet waxaa la ciyaartaan oo qofka ciyaartan isla dheelo ciyaalka isla dheelaan iyo gabdhaha isla dheelaan ayaa la dhahaa ballet. They practice ballet
every day after school. Maalin walba markay iskuulka ka soo baxaan ayay practice sameeyaan. Their ballet instructor tells them that they are excellent ballet dancers. Macalinkooda ku tababaro ciyaarta wuxuu u sheegaa inay yihiin dad ku fiican ciyaarta. And their friends tell them that they dance better than anyone else. Walaalo saaxiibadoodna waxay u sheegaan inay yihiin dadka ugu fiican, labada gabdhood ee ugu fiican klaaska ama iskuulka ciyaartaasi. Alright, Jane and Vanessa wants to be a professional ballet dancers when they grow up. Waxay rabaan inay noqdaan professional inay noqdaan. That's why they practice every day. Taas ayaana sabab u waxay maalin walba practice u sameynayaan. Marka insha Allah listening ayaa inoo shidaya casharkan listeningkiisa ayaa inoo shidaya waa isla dhageysanayna insha Allah. My sisters, my brother and I are busy this afternoon. We're staying after school and we're practicing different things. I'm practicing soccer. I practice soccer every day after school. My soccer coach tells me I'm an excellent soccer player. And my friends tell me I play soccer better than anyone else in the school. I want to be a professional soccer player when I grow up. That's why I practice every day. My sister Anita is practicing tennis. She practices tennis every day after school. Her tennis coach tells her she's an excellent tennis player, and her friends tell her she plays tennis better than anyone else in the school. Anita wants to be a professional tennis player when she grows up. That's why she practices every day. My brother Hector is practicing the violin. He practices the violin every day after school. His music teacher tells him he's an excellent violinist, and his friends tell him he plays the violin better than anyone else in the school. Hector wants to be a professional violinist when he grows up. That's why he practices every day. My sisters Jenny and Vanessa are practicing ballet. They practice ballet every day after school. Their ballet instructor tells them they're excellent ballet dancers, and their friends tell them they dance better than anyone else in the school. Jenny and Vanessa want to be professional ballet dancers when they grow up. That's why they practice every day. Alright, mashallah. Waxaan filayaa inaad casharka si fiican uga faa'iideysateen. Marka shaqada idinka raba wax weeyaan inaad codkiina soo duubtaan hal ama laba qofood oo kale tusaale ahaan oo kale ama qaybtan ka qaado adiga ugu yaraan laba qaybood qaado kadib labadaas qaybood ku soo duub groupka codkaada soo duub kadibna groupka soo gali waa laga dhageysanayaa insha Allah aad bayna arintaasi kuugu muhiim ku tahay inaad codkaada soo galisid maxaa yeelay you will grow more confident insha Allah marka casharka halkan ayaa ku soo gabagabeynaya u diyaar garooba casharada xigo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh